السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنالك مركز سود وهذا أدي هذا ومهتنتين ما أنتوا قميص وأنا كوبي لباتنك بيش شناد ماي سنة كلا بدو كون إيه اللحية لباتنك مقال كان ما أنت وحن ربائنا ندو كل وذاقه قضبة فربضن أو مهمة أو دمان تطبق قبل كمين صوتك كسابسن هواني دي مدحدة كاهيد أورور كفيدين أو فيوتر إيمي باك أو صومالي فربضن دنبي كعمها وجلسي ayaa maanta la xukumay hadaba muddo sanad dheer ah ayaa lagu xukumay imisa sana ayaa lagu xukumay waan idin wadaagayaa maxkamadda maxay ka sheegtay garsooruhuna muxuu ku yiri ka hor intii uusan xukumin waan idin wadaagayaa wasaaradda cadaaladda ayaa maanta waxa ay dacwado ku soo ogtay gobolka Minnesota 15 qof oo Soomaali u badan kuwaasi oo lagu eedeynayo in barnaamijyadii gobolka Minnesota loogu talagalay dadka in lagu caawiyo ee federaalka ahaa ay ka musuqmaasuqeen lacag gaaraysa 90 milyan oo dollar arrintaasina sidoo kale waan idin wadaagayaa iyo Soomaali kale oo iyaguna dacwado kale oo gooni ah lagu soo oogay oo la xiriiro dhinaca Medicaid-ka sidoo kalena waan idin wadaagayaa balse marka hore soo dhawaada haweeneydii madaxda ka ahayd ururkii Feeding Our Future oo aan ognahay in Soomaali fara badan ay dambi gacmaha u galiyay ururkaasi oo haweeneyda Amy Park ay madaxda ka ahayd haweeneydaasi ayaa maanta la xukumay Amy Park bishii March 19 ee sanadkii 2025 ayaa 7 dambi oo isdabamarin lacageed laaluush iyo dambiye kale lagu helay isla markaana muddo sanad ka badan ayaa hadda xabsi ay ku jirtay maanta ayaa xukunkeedu ahaa haddaba haweeneydan Amy Park oo 45 jir ah ayaa maanta la xukumay waxaana lagu xukumay 41 sano iyo waliba 6 bilood oo xabsi ah dacwadoogayaashu waxay doonayeen 50 sano in lagu xukumo halka qareenkeedu uu doonayay 3 sano in lagu xukumo laakiin iyadoo ooynaysa ayaa maxkamadda ka hor intii aan la xukumin ay qoraal kooban ay ka aqrisay isla markaana raali gelin ayay ka bixisay markeedii ugu horeysay musuqmaasuqa ururka iyadoo ay madaxda ka ahayd ee Feeding Our Future uu ku kacay iyadoo silsiladaysneed isla markaana timuhu ay gadaal ugu xirnaayeen ayaa fariintan ay aqrisay waxay tiri waxaan doonayaa inaan qof kasta u sheego sida aan uga xumahay waxa dhacay waan fahansanahay in aan ku guul daraystay dhinaca shacabka inaan ku fashilmay isla markaana sidoo kalena dhibaatooyinka aan sababay waxaan rumaysnaa wax kasta oo aan sameynayay in aan si wanaagsan u sameynayay laakiin qaladaad fara badan ayaan sameeyay ayay tiri marka qoyskayga iyo waliba shacabkana waan ku fashilmay dhankooda ayay tiri marka garsooraha maxkamadda Nancy Brazel ayaa iyadu waxa ay diiday in Amy Park oo isku dayaysay inay iska fogeyso musuqmaasuqa lacagtaasi malaayiinta dollara oo xilligii coronavirus-ka loogu talagalay in caruurta lagu quudiyo waxaana dacwadoogayaashu ay sheegeen in Amy Park weligeed aysan qaadan mas'uuliyadda musuqmaasuqii ugu ballaarnaa ee taariikhda gobolka Minnesota ka dhaca amaba ugu weynaa kadib markii sidoo kale Amy Park ay raaligelintaasi bixisay ee garsooraha maxkamadda Nancy Brazel waxa ay sheegtay sidoo kale ay ku xukuntay 41 sano iyo 6 bilood waxaana sidoo kale ay u dhowdahay dacwadoogayaashu 50 sano oo ay dalbanayeen laakiin waxay ka fog tahay 3 sano oo qareenkeedu uu dalbanayay haddaba garsooruhu waxa ay ku tiri Nancy Brazel markii ay xukumaysay arrintan aad ayay u fog tahay musuqmaasuqan oo waxa uu ahaa mid meerta ah isla markaana ururkaadu waxa uu ahaa halka uu ka bilowday musuqmaasuqan marka waxa ay sheegtay waxaad ku kacday mid kamid ah musuqmaasuqii ugu ballaarnaa kaasi oo saameyn fog ku yeelanaya taariikhda gobolka Minnesota waxaan weli ku arkaa in aad dhinac ka taagan tahay oo aadan ka shalaynaynin waxyaabihii aad sababtay welina eedda waxaad dusha ka sii saaraysaa dad kale sidaas darteed Amy Park garsooruhu markaasi waa ay xukuntay walow hadda sanad ka badan ee xabsi ku jirtay 41 sano iyo 6 bilood ayaa hadda lagu xukumay Amy Park dhinaca kale maanta gobolka Minnesota waxaa dacwado lagu soo oogay 15 qof oo lagu eedeynayo inay musuqmaasuqeen 7 barnaamij oo federaal ah kuwaasi oo dowladda federaalka ee gobolka Minnesota ay siinaysay lacag 90 milyan oo dollar ah ayayna musuqmaasuqeen dacwadahan markii lagu dhawaaqayo waxaa shir jaraa'id qabtay oo goobjoog ka ahaa wasiirka caafimaadka ee dowladda federaalka ee Mareykanka Robert F Kennedy ninka madaxda ka ah xarumaha Medicare iyo waliba Medicaid oo barnaamijyadan la musuqmaasuqay intooda badan ay u badnaayeen Dr. Mehmet Oz
waxaana sidoo kale dacwadahan ku dhawaaqay ninka la yidhaahdo Colin McDonald oo wasaaradda cadaaladda u qaabilsan dhinaca la dagaalanka musuqmaasuqa. waxaa dadka dacwadaha lagu soo oogay ay u badnaayeen dad Soomaali ah, waa 15 qof dadka dacwadaha lagu soo oogay. waxaa ka mid ah 2 qof oo iyagu iska lahaa xarumaha autismka oo la kala yiraahdo Smart Therapy oo ku taala magaalada Minneapolis iyo waliba Star Autism oo iyadana ku taala magaalada St. Cloud. labadan qof oo eedeysanayaasha magacyadooda waxaa la kala yiraahdaa Shamso Axmed Xasan oo iyadu sidoo kale share ku lahayd labadaasi company iyo sidoo kalena Xanaan Mursal Yuusuf oo iyaduna shaqaale ka ahayd xarunta la yiraahdo Smart Therapy. waxaana dacwadaha lagu soo oogay labadan eedeysana sidoo kale jira dad kale oo iyaguna ku lug leh oo aan la magacaabin isla markaana musuqmaasuqan kula jiray. waxaana lagu eedeynayaa in lacaga sharci darro ah oo u dhaxaysa 300 ilaa iyo $1,500 ay qoysaska ka qaadanayeen si carruurtooda ay uga diiwaangeliyaan xarumahan lagu daweeyo carruurta la xanuunsan autismka. labadan company ayaa waxa ay Medicaid horta waxaa la yiraahdaa caafimaad dawladdu ay bixiso oo gobolada ay siiso, isla markaana kaarkaasi caafimaadka ayaa lacagahan ay ku biilgaraysanayeen. lacaga malaayiin dollar ah ayay qaateen in carruurtaasi ay ku daaweynayeen xarumahaasi, waxaana la leeyahay waxa ay ku soo biilgaraysteen kambaniyadaasi dad aanba caafimaadka waxba ka aqoonin amaba aan joogin goobta ayay soo qorteen, amaba sidoo kale waxaa jirta dad iyagu tababar la siiyey kuwaasi oo aan meesha joogin marka carruurtaasi la daweynayay. wasaaradda cadaaladdu marka waxa ay ku qiyaastay in labadaasi company Star Autism iyo sidoo kalena Smart Therapy ay Medicaid ku soo biilgaraysteen ama ka soo dalbadeen $46.6 milyan in ay lacagahaasi ay qaateen. sidoo kale waxaa jirta in $21.1 milyan dadkaasi ay guryo hanti ay ku iibsadeen amaba waddanka Kenya ay u direen. lacagaha autismka loogu talagalay markii la bilaabay sanadkii 2020 38 milyan ayay ahaayeen, laakiin sanadkii 2025 442 milyan ayay gaareen. marka haweeneyda madaxda ka ahayd oo iska lahayd in Smart Therapy Caasha Xasan waxa ay dambigeeda qaratay bishii December ee sanadkii 2025 halka Cabdinajiib Yuusuf oo isaguna iska lahaa Star Autism oo dambigiisa qirtay bishii March ee sanadkan. haddaba Colin McDonald oo wasaaradda cadaaladda u qaabilsan dhinaca la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa maanta waxa uu ku dhawaaqay dacwadahan lagu soo oogay 15 qof oo lagu eedeynayo 7 barnaamij oo dowladda federaalka ah ay maalgelinaysay gobolka Minnesota loogu talagalay in ay maamulaan in lacag $90 milyan ay ka musuqmaasuqeen. barnaamijka loogu talagalay dadka homelesska in guryo loogu raadiyo oo la yiraahdo HHS waxa uu yiri waa la xiray gabi ahaan kadib markii wax lacag ah loo waayay. barnaamijka autismka carruurta la xanuunsan loogu talagalayna lacagihii loogu talagalay lacaga ka badan ayaa gobolka uu ku bixinayay sanadkii 2025. haddaba waa kan isagoo ku dhawaaqayay markii dacwadahaasi 15 qof lagu soo oogay. Today, we are announcing criminal charges against 15 defendants in Minnesota for fraud schemes that targeted over $90 million in taxpayer dollars. Let me be clear up front about something. This is not the end of our work in Minnesota. This is not the end of the beginning of our work in Minnesota. This is the beginning of our work in Minnesota. The fraud here in Minnesota is shocking. Our cases today involve 7 different state-managed Medicaid programs that have been systematically pilfered by fraudsters who treated Minnesota-run programs as their personal piggy bank. One of the programs has been completely shut down because there's no money left. It's all gone. That was Minnesota's state-run Housing Stabilization Services program, designed to help the homeless find and maintain housing. It was estimated in 2020 that it would cost only about $2.5 million a year to fund this program, but it ended up costing almost 50 times that much, over $104 million by 2024 due to fraud. And because of all the fraud, Minnesota had to shut the program down in 2025, and now these services no longer exist for these vulnerable homeless populations.
The same trends exist for other Minnesota-run taxpayer-funded programs. An autism program that cost the taxpayer $600,000 just 6 years ago skyrocketed to over $400 million. And to be sure, that number is not driven by supply and demand. It is not driven by health care or charity. It is fraud. dhinaca kale dadka Soomaalida ah ee dacwadaha lagu soo oogay waxaa ka mid ah Mustafa Tayyib iyo sidoo kalena Abdul Basid Ibrahim iyagana barnaamijkan HSS-ka oo loogu talagalay dadka nugul ama daroogooyinka laga dhaqay ama guryo la'aanta in guryo loogu raadiyo ayaa waxa ay ka musuqmaasuqeen lacag gaaraysa $975,000 sanadkii 2022 waxaana la filayaa in ay dambigooda ay qirtaan. dadka Soomaalida ee dacwadaha lagu soo oogay waxaa ka mid ah gabar lagu magacaabo Fahiima Cige Maxamuud laba dacwadood oo ku dhawaad $5 milyan inay qaadatay ayaa lagu soo oogay. dacwadda koobaad waxa ay tahay in Fahiima ay iska lahayd mid ka mid ah dheekeeradii wiilkii cadaanka ah ee Nick Charlie bishii December ee sanadkii hore muuqaalada uu ka soo duubay oo yiri caruur ma joogto waa iska xiran yihiin lacagana waa lagu qaataa. waxa ay iska lahayd dheekeer lagu magacaabo Future Leaders Early Learning Center waxaana ay heshay lacag gaaraysa oo dheekeerkaasi ku qaadatay $4.6 milyan. waxyaabaha lagu haysto gabadhan Soomaalida ah waxaa ka mid ah waxaa jira lacaga loogu talagalay in waalidiinta laga qaado markaasi kadibna oo qasab ah markaasi kadibna lacagahaasi lagu beelgareeyo dowladda. sidaas darteed waxaa la leeyahay ilaa 13,000 oo been abuur ah ayaa intii u dhaxaysay bishii Oktoobar ee sanadkii 2022 ilaa bishii December ee 12aad sanadkii 2025 lacagahaasi been abuurka ah ayay soo dirsatay. waxaana waraaqaha maxkamadda ay muujinayaan in ay si been abuur ah ay lacagahaasi ay u soo dirsanaysay. Fahiima sidoo kale bishii February ee sanadkan ayaa waxaa lala xiriiriyay kiiskii dacwadihii Feeding Our Future oo lacag $854,000 ayay qaadatay iyadoo dhahaysay ilaa 1,000 caruur ah ayaan 7 maalmood aan quudinayay intii u dhaxaysay January sanadkii 2021 ilaa July sanadkii 2000 iyo sidoo kalena 2021. waxa ay sheegtay Fahiima in daykeerkeeda ay xiraysay ayna bishii February ee sanadkan waxaana la ogaaday maalin kadib in ay ticket u jaratay magaalada London oo ay doonaysay inay safarto airportka ayaana laga qabtay iyadoo kaasi jaratay. marka waxay ka mid tahay hadda dadka dacwadaha lagu soo oogay Fahiima oo lagu eedeynayo lacag ku dhawaad $5 milyan in ay qaadatay. laakiin waxaa kaloo jirta in saaka la isku dayay in mid ka mid ah dadka Soomaalida ah ee dacwadaha lagu soo oogay in la soo qabto isla markaana uu baxsaday. ninkan waxaa la yiraahdaa Maxamed Cumar waxaana shirka jaraa'id lagu soo bandhigay muuqaal muujinaya sida aad aragtaan ninkan oo baxsanaya. muuqaalkan waxa uu ka muuqanayaa waxa la leeyahay waliba waxa uu ka soo degay balcony oo guri 4 dabaqa ayuu iska soo tuuray isagoo hintinaya oo labadiisa kabood mid ka mid ah gacanta ku wata ayaa la arkaya. waxa ninkan la yiraahdaa Maxamuud Cumar ayaa la yiraahdaa isaga iyo nin kale oo la yiraahdo Ibrahim Bashiir Cabdi ayaa waxa ay wada maamulayeen laba xarumood oo lagu magacaabo North Home Health Care iyo South Home Health Care oo ku yaala Minneapolis waxaana lagu eedeynayaa $3.2 milyan inay qaateen. Maxamuud Cumar isaga waxaa lagu eedeynayaa ilaa $480,000 marka xilli saaka la isku dayay in la soo qabto oo la soo xiro ayuu baxsaday. marka saraakiishu waxa ay dalbanayaan in qof allaale qofka yaqaan ama arka in FBI-da uu la soo xiriiro amaba booliska uu la xiriiro. waatan markii shirka jaraa'id lagu soo bandhigay muuqaalka isla markaana lagu dalbanayay qof kasta oo arka ama yaqaana in uu la soo xiriiro FBI-da. nambarka waliba waa la idin sheegaya waad arkaysaan amaba booliska ugu dhow in uu la soo xiriiro. marka ninkaasina waa baxsad saaka xilli la isku dayay in la soo qabto ayuu balcony-ga iska soo tuuray lugta waliba dhaawac ayaa ka gaaro waa uu hintinaya labadiisa kaboodna mid ka mid ah ayuu gacanta ku wataa waliba funaanad cad iyo buumo oo kaliya ayuu wataa ama short oo dharkiisii xitaa waa uu ka cararay ninkaasi. bal muuqaalkana ila daawada. I need your help. On the screen, you will see a subject. You will see a subject depicted on the screen here of an individual who was a target of the investigation this morning. That individual is currently on the run after having jumped out of a fourth story balcony. I want you to get a good look at him right now. You'll see him. You'll see him running here. He is currently on the run. We need your help. If you recognize this individual, if you know this individual, if you can provide any information related to this individual, I would encourage you to call 1-800
call FBI, CALL FBI, or go to the internet at www.tips.fbi.gov or call your local law enforcement. aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waaro idinla sidaa iyo nabadgelyo